السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalayaal waxaan rabaa maanta inaan aniga kolba dad kale ma galaayo anaaba tayda bay haysataa qof ay tiisa haysatan tu kale ma gala aniga waxaan rabaa arrimaha aniga daahira shakhsi ahaan waxay haysta ama igu dhacay inaan ka hadlo taasaa badde waxaan rabaa walaalayaal horta adduunka oo idilba horta daacad ma cadaalad wax la dhaama jirto wax cadaalad la dhaha oo adduunka ka jira male meel kasta joog ama Soomaali joog ama Afrikada kala joog ama Mareykan joog ama Yurubtan kala joog meel alla meesha joogto horta adduunka cadaalad male cadaalad hadaad sugaysa ha raadina cadaalad laakiin maxaad raadinaysaa nolol un raadi cadaalad wax la dhaama male maxaa adduunka qofka daacadda ayaa la dilaa tuuga lama dila tuuga waa la daajiyaa Soomaaliya dhageystayaa kolba aniga af Soomaaliya ku hadlayaa af kale oo aqaan male tuug sidiisaba waa la daajiyaa laakiin waxa la dilaa kan maskiinka ah oo korsatada ah oo daacadda kaasa la dilaa dhibaato oo idil si u dhaqdhaqaaqina kaasa lagu sameeyaa aniga kolba 2014kii ayay dhibaatay u dhacday dhibaatadii ugu dhacdana abtan now barbalenki way haystaa igama dhamaanin wallah been idama sheegan igama dhamaanin wax iga dhamaadin male waayo dhakhtar haddaan u tago waji fiican kama helo meel kale ceer haddaan tago waji fiican kama helo shaqo haddaan tago waji fiican kama helo adduunkoo idilba jiq ayay iga dhigan wax allaay waxay ayaka rabaan ma ogi waxaad adiga rabta agood aad ku dhaqdhaqaaqda ama sidaad adiga rabta aad samay karta male arrintooda baa socoto waa inay tahay taada ayakatooda ay ka fushadaan adduunka aan lagu dhihin cadaalada ka shaqeysa cadaalad male adduunka waxaa yeela waa ka xoog badanaya waa ka taakroonaya waa ku xuburi kara xurnimo ma jirto wax xurnimo la dhahay ma jirto haba sugayn xurnimo ma jirto maxaa hadday xurnimo jirta xadgudubyada qaar la iskuma xadgudbeen siba aniga xadgudubka aniga taydaan ka hadlayaa aniga waxaa liigu xadgudbay si aanan yacni ka baxsan bani'aadanimada ka baxsan ayaa liigu xadgudbay aniga runtii wuxuu igu reebay xanuun maskaxiyan ahaan buu igu reebay qalbiyan ahaan buu igu reebay xanuunkaas igama dhammaada wallaahi billaah waa ay hami baa lahaa 10 sano ku dhawaadan qaxooti dhex fadhi hamiyaan lahay markaan inta soo galay naag baa igu raadsatay waji igu raadsatay oo iga waaday oo luuqadeeda war dhageysta Soomaaliya horta wax hadaa lidin sheega qabiil iyo wax kale ku ordaysaan wallahi bii kama dhibcaan inay Soomaalida qof allah qofka liita ama luuqada aan aqaanin oy arkaan ama meesha loogu tira badan yahay haday arkaan meel kasto joogan way kugu cuburinayaan ogaanteeda lahaado aniga naag baa gawaad ay gawaadi oo san ay gashay naagtii ayada ahayd waa raaxaysan haysaa anigana dhibka adduunka wararkayga ku burburi muslimiin ay dhageystayaa dad yahow muslimka dhageysta reerkayga wuxuu ku burburay dhibaato ay gabadhaasi horseed reerkayga wuxuu ku burburay dhibaato ay gabadhaasi horseed ilmahayga aniga kala cararnay war fiiri had shalay aniga naaka wali sheegay dadkii keenay ay sheegay waxay ku dhaheen maraa qaar xadgudub baa kugu dhici kara islaali aniga oo cabsi qabo dad wada weeraxana haata arkay oo cabsidi qabo ayay ilaahay igu dhaaratay haddaba qof hadduu Soomaali luuqad yaqaana hadduu ilaahay kugu dhaarto ma kitaabka jaamacada kugu dhaarto don't believe garayn waayo gabadhaas waji bay ugu samaysanaysa qatala la dhahaa magaceeda anigu magaceeda exactly lama sheega laakiin magaceeda qatala la yiraahdaa iyo burburiyo aniga ilmahayga kala cararnay wallaahi billaahi tallah maxaa dhibaatada qaar gocoshiyo xanuun bay leedahay ma shaqaysto korkayga qiiq baa ka baxaaya ma shaqaysan karo bulsho ma dhexgali karo iga raali noqdo wallahi
والله يرى النقم والله بلشة ما دحقلي كرا عيالك يجي بايقك العرري أنا الميقى عاسي معها الميقى عاسي معها عاسي أنا مدل الميقى وباري dhibaatan nagu dhacday unbaan kala cararnay marka keenitaan maraykan lagu keenay oo lagu yiri welcome maraykan waatan lagu yiri waxba ku tari maysa maadaama ay cadaalad ka shaqeyneen oo ay cadaalad ka jirin haddaad DSS-taad wax ka doonato waa ku cuburnayaan haddaad u tagto haddaad DSS-ta wax u doonato waa ku cuburnayaan haddaad dhakhtarkaad wax u tagto inuu ku caburiyo oo maaragtay dhibkii lagugu sameeyo uu duugu isku dayaaya tuugadii shalay iga waaday oo maaragtay dhibaatadan in ayada belief gareeyay aan u galnay bartigiideeda ay ka shaqaysaa waa gawaad waaye gawaad lama racdee wallahi ha ka sugan gawaad in la racdee lama fiijiyo gawaad qofka hadduu gawaad yahay lama fiijiyo alxamdulilah hor sidii hore ma ihi laakiin gocosho iyo ciil iyo xasuus igama go'do واي قعشة ما تعلن هذا أنا أيضا أفريقيا سلجوج لهن قعشة أنا أيضا مذا مقنان لها قعشة ما تعلن لكن هذا اسمه دقاجة كرتت وكا أقول بدن هاجرتو غير كانوا واكو هايا والله بينا ذا غير هردة هاتوا أيضا تكتاه وايو تضبطنا ولا له مسلمين أيا نباتة يقص ما يسي أيا كل نباتوبي قال لي مسلم باكو دباتوبي والله حين ورد دونتي ما نغانا يرد مركان كسو استاغي او ودن كسو غلي او فول استانبل لي سيور نمعدا الدنيا ذا ما جرتي ايا هل سنه او حامله هاي ان ايا عافيماد قبي انتي كلا مدحان كسعودي بل الهي با idinku dhaarshay qof madaxa ku socda oo xaaladiisa baan xaaladahan ya ma shaqaysa kara meel ma ka bixi kara dadka dhaxtagaysa bulshada dhaxtagaysa kama dhax shaqaysan kartid ya waxaad qabsan karta male ilmihii aan dhalnay haatay markii waxa la igu daray war ninkaygii baa i dilay oo ubadkaygii baa i dilay oo dadkii muslimiinta ahay oo caysho milax ay ahayn baa dhibaato ma aniga dhibaatada ma wata ma ayaka wata wallahi ma garan karo ayaa dhibaato anigii oo idil baa ciil iyo caraan dhamaanin korkayga qiiq baa ka baxaya ma seexan karo waa cubursanahay cabsi wax maba sheegi kara waxa igu dhacay oo igu sameeyay maba sheegi kara waa garateen umalayna marka runtii inay islowsii waa jeclahay oo ka tirasuur laakiin marba wax ay loobi kara ma ah waa wax xasuus ugu reebay waxaa iiga daran dhibaatadan ka dhaxlay ayaa iiga daran waa idin soo gudbi doonaa cirbadaas dhaxaltooyada ay ugu reebtay baa iiga daran xanuunka iyada ay i marisay ishii tobnaad bay inay dhaheen ilkaanka hagaajinaynaa keen ay dhaheen ay halkaa qalka iga geliyaan cirbada iga geliyaan si yacni dhaadhaan markay ku dhibaateeyaan 12 magacay horta ay kugu yeelayeen oo iyaka isku daafacayaan koow waxay ku leeyihiin qofkan waa waalan yahay maskaxda ahaan ayaa looga yimid laba waxay ku leeyihiin qofkan waa doqon qofkan wallahi waa ku leeyihiin mar waa waalan yahay ku leeyihiin mar waa doqon ay ku leeyihiin marba wax bay kugu sheegayaan yacni marba wax mar waa iska yeelyeela uu ku leeyahay yacni marba wax baa lagugu sheegayaa ayaka ayaa tooda ay shaqaynaysaa adiga hadalkaada cod ma lihid codkaada ma shaqaynayo si kasta ay ku dhibaateeyaan codkaada ma shaqaynayo wax codkaada uu shaqaynayo male warkooda shaqaynaya ay kala dhageysana tiftifka oo ma aragtay midka oo tuuga oo rufiyaanka oo Soomaali midibkana adiga kaaga eeg oo tuuga dhale hadalkiisa la dhageysanaya kaada lama dhageysana marka waxaan leeyahay siba gabdhaha Soomaaliyeed wadankan dhibaato taala ilmaheena kale xukuma ee caafimaadkeena haata waa ku jira ilmo la qaatay haata kuma eka caafimaadkeena haata waa ku jira dhibaato badan baa nagu haysata waad ogtihiin iska ilaaliya dadka idinka idin eg oo Soomaalinimada kula matalaya
oo muslimnimadii shahaadadii iyo salaadaba kaaga horeeya oo tuuga dhalay ah oo maaragtay laba wajiilaha ah oo dhinac kastaba naarta ka geli doono iska ilaaliya kaas aniga saasoo kaleeto waxaa yeelay wax qaatul laha yeelay qaatul ayaa i helay kolba waa qadar allah qadar baa igu dhacday aniga waxaan aan leeyahay mar kastaba oo maskaxdayda ilaahay baa intaan bahaatay marada inaan maanta wato oonan tuurin ilaahay baa ii gartay laakiin waxaan ku idin leeyahay qaatuliinta luuqadana yaqaana tuugada ah oo ma aragtay dharka muslimnimada kula sheeganaya muslimna ana waxbana ka ogeen ninka muslimka ah walaalkiisa ma dhibaatee laakiin dhibaatada kula soo raadsanay iska ilaali ya idin dhibaatayna aniga waa ku dhacay shabagaa lii dhigay saf fiican baan ugu dhacay haddee dadka waa kala reeyaa dadka libinta ma qaadan waynine wixii xasuustii ugu soo gadoomaysa yacni in liiga xoog batay oo ma aragtay agood lii sheegtay waxay aamusay agood baa lii sheegtay ma ogiye ma aamusin markaan inta soo degayne waxaan la aamusay runtii waxaan galay dhibkii ugu hoosey yacni agood aan ku hadlay iyo agood aan ma aragtay dhibkayga ku sheegtay iyo agood aan gartayda ku naqsada midba ma haysan marka is ilaaliya Soomaali Maxamed is ilaaliya anigu waa dhibaatooday weligay ma jeclaan jirin anoo oynaaya ama ilin ay iga socotay inuu qof balaadani arka ma jeclaan jirin laakiin runtii dhibaataaday kugu dhacdo waa iska oynaysaa oo inta waxaa waaye qayb caafimaadka ka mid ah marka waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu